Ethiopia markay dacweyso Ethiopia hal qoraalka ay soo dhigto maanta hadii tiraahdo qoraalka qura soo dhigto oo taanu madax banaanida Soomaaliya ma haysto Soomaaliland guul bay ka sii qaadaysaa inta la dacweeyo waxba dhax kale laba Soomaaliya saysta matalaaduna dhuliga dadkiisa intuu sharcigu siiyay Xasan Sheekh Maxamuud uu garanaya warqadaas siisay oo magaca Soomaaliyiisi uu maamul waxaan Ilaahay mahad u hayaa maanta oo waqtigan timaaday inaan ayunu soomna baxayn dastuurkii Soomaaliya dhameystirmayn ilaa khilaafka Soomaaliland dhamaado Soomaaliland meesha laga badiyay ee ogeyn ee dhagarta ku waa Unisom xafiiska xal qodob fadhiyo weeyaan riboodka baxaya ee Soomaaliland laga ilaaliyo qoraalada lagu qoro xasan jawaab isla dastuurka taas ka dhigtay mid dhamaanaya Unisomna ka baxdo Soomaaliland marka dhow dawladee oo socota waa arrimaha khilaafaadka gudaha dhig labada baarlamaanka Soomaaliya oo fadhiyo qoraalka soo saareen ee soo dhaweynaa qoraalka ay isleey kaga hortaga Jamhuuriyadda Soomaaliland ha ogaadaan inuu qoraalka fasaxay Soomaaliland maanta waxay Soomaaliya la qaylinaysaa Ethiopia heshiis ka baxday weelada arrintan horta meesha taala la isku ma haysto badda Ethiopia bixinaysa Ethiopia la siinaya iyo mawduuca la isku ma haysto sharciyan heshiis caalami ah gasho dastuurka Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya baa ogol mandate kan dawladda alle waxa la isku haysta yaa bixin kara cidda bixin karta ayaa Soomaaliya waxa la buuq u abuuraysaa waxaan soo dhaweynayaa sharciga ka soo baxay labadii bishii koowaad 2024 baarlamaanka Soomaaliya labada baarlamaanka Soomaaliya oo fadhiyo qoraalka soo saareen ee soo dhaweynaa qoraalka ay isleey kaga hortaga Jamhuuriyadda Soomaaliland ha ogaadaan inuu qoraalka fasaxay Soomaaliland 3 sano ka bacdi go'aan ummadda reer Soomaaliland u dana ayaa ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya muxuu yahay dadku dhawaad waniyo horta inta badan ninka ku sheeganaya isaga oo isla hebel dil ayuu xabadda isku dilay gacanta ku sita waa kan wuxuu sheegayaa waxaan ilaalinaynaa madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya weligeedna Soomaaliland kama mid noqon madax banaanida Soomaaliya kuma haysano madax banaanida Soomaaliya waxayna ku caddahay qoraalkii madax banaanida ku qaateen oo kan ah isagoo qoraalkiisa dhameystiranna waxaad ka arki doontaa shaashada qofka soo baxdana wax qarsan doona madax banaanida dhuleed Soomaaliya Soomaaliland kuma jirto kuma haysano qaybna ka midnihin madax banaanida dhuleed Soomaaliya waxay ku cadday 2 July 1960 waana qoraalkay ku qaateen oo kan ah ayaa fasaxayo weligeedna ma soo ka mid noqon kaas waa qodob labaad meesha ku jira Soomaaliland madax banaani gaar ah soo saaray marka warqadda soo saaray iyo wakiilkii ka mas'uulka ahaa Soomaaliya oo Talyaaniga war soo saareen wuxuu soo baxay 3 June 1960 waa markii madax banaanida qaateen maalinta saacada macallin sikinka madax banaanida qaadeen ku cadday dhulka oo la madax banaanay ku caddahay wax walba ku cad magac waxa loo jeedo Soomaaliland Transition loo jeedo oo ka mas'uul maamulka Talyaaniga loo jeedo maadaama hadda ka bacdi magacii Soomaaliland Transition maamulka Talyaaniga hadda ka bacdi markuu xalaqaad waxa loogu yeeri doonaa Soomaaliya buri taas waa qodob sharaxaad baan in yar tusay dadka Soomaaliya waxa dhulka Soomaaliya madax banaanay horta asal ahaan dhulka Soomaaliya madax banaanay madax banaanay qaatay 6 June ka Soomaaliya madax banaanay madax banaanay wuxuu qaatay 2 July labadoodu waxay heshiis af ah wada galeen inteena madax banaanida qaad bishii afraad bishii safar wada galeen caalamkeena u direen waxay yiraahdeen labadeen marka madax banaanida qaadano waxaan wada sameeysan doonaa hal dawlad oo magaceeda la Somali Republic hada Soomaaliya ma marka labadii dal ee madax banaana halkay sameeysan laba dawladood ay waxa wada sameeysan hal dawlad oo magaceeda la Somali Republic dal ahaan Soomaaliya way madax banaantay dal ahaan Soomaaliya way madax banaantay labadii dawlad markii dawladii ka dhaxaysay labada dal ee madax banaan markii duntay meesha waxa soo galay qoraalka Unisom ba soo gashay oo xog ahaan aan ku hayno mar daba soo bandhigi doonay siyaad baraka dambeeyo keenay wali waqtiga oo duumistii wali dalkii aduumayay Unisom ee gudoon bahar Unisom baa loo soo saaray waqtiga Unisom halka la keenay Unisom ba ka mas'uula dawladda Ingiriisku wakiilka qaabilsan bariga Afrika warqad uu qoray 29kii baa jirtuu leeyahay dalka dawladda duntay waxay ka dhaxaysay laba dal madax banaan hadaa dawladdu inay u dhisayso waa inaad u dhistaa dawladda raali ku yihiin haddii ka soo dhistaa laba dawladood halka ay xalku taagan yahay Unisom qolada Unisom leedahay Soomaaliland meesha laga badiyay ee ogeyn ee dhagarta ku waa Unisom xafiiska xal qodob fadhiyo weeyaan qolada xafiiska xal la fadhiya
dhibaatada soddonkaa Soomaaliland Soomaaliland ku haysiga ku haya Soomaaliland ma fahansana waxa laga ilaaliyaa riboodka baxaya ee Soomaaliland laga ilaaliyo qoraalada lagu qoro imka xajab wuxuu yiraahdaa shabaab iyo qolo noocaas oo qoray media dhex wareejinayo islaamo shacab la soo wareysanayay ayaad arkayseen shabaabna lacag baa loo dirayo shabaab wax la soo hadla ribood baa la qoraya yuu soo baa ribood dira markaa dowladda Soomaaliya dirtay riboodka la qoray rabtaa inay raaciso oo tiraahdo dalka anaga ka mas'uula haddaba ninka mas'uuliyadaada sheeganaya ee xeerarka imika u sameeyay xeer hore looma haylaan ee xeer imika u sameysanayo ogow waxaad ka hadashay hal madax banaaniyo tii Soomaaliya ah laba madax banaaniya lagama hadli karo madax banaanida Soomaaliland baa dawladdu haysto mandatekeedu haysto taas waa qodob kale meesha ku jira oo niyo dadka Soomaaliland aan mar walba faahfaahsanayn dawladda Soomaaliya kama mas'uulad dawladda Soomaaliyeed ma aha dawladda Soomaaliyeed ma magaca dawladda Soomaaliyeed ma sheegi karto 2003 shir baa ka dhacay Addis Ababa shirka waxa hogaaminayay Mini Sanaawi iyo Cabdiqaasim Xasan waxa la hordhigay qoraal saxiix siyaad bare oo ku bixinayo Soomaali galbeed Cabdiqaasim Xasan saxiixiisa bartan ku haya oo ku saxiixay oo riboodka dhameystirka ka hadlay oo ku saxiixay oo uu leeyahay Soomaali galbeed shaqo kuma leh kow waa kan la ku tusxan hoosta ka tusay iyadoo qoraal ba ku soo tiray kaas waa qodob labaad meesha ku jira oo ha ku dhex qoran soo marka uu fasaxay Soomaali galbeed wuxuu leeyahay siyaad bare hore bixiyay uu leeyahay waxa lagu jiritaanka dawladda Soomaaliyeed shaqo kuma leh haabuli haddaba heshiis hoose oo qoraal ku dhaxad ayaa waxay dhex mareen Itoobiya iyo Soomaaliya oo ay leeyihiin Soomaaliland baan dhacayay haygu iman Itoobiya ahaanay adaa xad loo fashilin karaye haygu iman maanta waxay Soomaaliland la qaylinaysaa Itoobiya heshiis ka baxday weelada mid kale kugu daraya oo yadnaadu muhiim waxaad ogaataa isqabsiga dhex maray dhuleed dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya wuxuu dhacay 1956 iyo 57 waa loo garnaqay maxkamadda United Nations la galeen go'aan baa ka soo baxay go'aankii bartaan ku haynaa wuxuu sheegayaa Itoobiya tii dhulkan madax bannaanida qaadanaya Soomaaliya oo ku wakiilkii Talyaanigu dhulkiisa hal la cadido marka dhul xuduud isku haysteen waa la cadido dhulka Soomaaliya intuu yahay dalka madax bannaanida qaadanaya lixdanka goortuu yahay inta cabir ku qaadanayo waxba waan haynaa haddaba meesha aan ku sheegay waxa weeyaan Soomaaliland waxa waajib ku ah Itoobiya dhex maraysa imika yin wala soo dacweyn doonaa marka la soo dacweeyo Soomaaliya dacwada kuma guuleysanayso boqolkiiba wax ku kalsoonahay maanta Soomaaliland la dacweeyo magaca Soomaaliya lagu dacweeyo go'aanka ka soo baxana iyadoo Soomaaliya saameyn ku yeelan laakiin Soomaaliland madaxdeeda meel kasta kala joogto waliba qolada gacanta ku haysa maamulka waxa uu soo jeedinayaa madax bahnaanida Soomaaliya ma galaan dhinacna kama galaan sida ay madaxda Soomaaliland maanta u shaqeyso guushan u weyn garan karta haddii se laakiin wuxuu qorqoraan ay qorqori jira Soomaaliya ka go'aynayo haddii qorqoraana waa laga guuleysanaya arrinta inta talibra waa intaas Soomaaliya damacabay ku wada Soomaaliland inay qaatay isku dayaysaa arrintaasina waxa fashiliyay arrinka Itoobiya midna aan kugu daro kaliya oo ugu gabagabeynaya Xasan Sheekh Maxamuud golihiisa baarlamaanka golihiisa wasiirada ilaa ashraabtiisa wuxuu ka shaqeysiyay imika hal arrin baa taala halka arrin waxa weeyaan Soomaaliya waxa xamar ka baxaysa xafiiskii UNISOM ba baxay 2014 ayaa loo qabtay 2014 sanadka buu ku eegay bilaabo biliis ugu dibay macalaas calood waxa ka dhacay xasan Cuslaa ka qari qoraalada uu yeento dirayo sawirku madaxweyne Muuse kula galay wuxuu iibinayay oo isla saxiix Muuse ka rabtay sawirka ku iibi xafiiska UNISOM fadhiya ee xamar fadhiya 10kii sano taraasiin shib ku jiray Xasan Sheekh Maxamuud maanta maadaama taraasiin shib ku jiro wuxuu iska dhigay meesha ana dawlad ku ah xafiiska UNISOM baa baxay kontraaga dhamaanaya waxaan ilaahay mahad u hayaa maanta oo waqtigan timaaday inaan UNISOMna baxayn dastuurkii Soomaaliya dhameystirmayn ilaa khilaafka Soomaaliland dhamaado xasan jabal isla dastuurka taas ka dhigtay mid dhamaanaya UNISOMna ka baxdo Soomaaliland markaa dhow dawladee oo socota waa arrimaha khilaafaadka gudaha dhacay أنا كود دولتين تحسنا ما أنتوا حفشي لسه هشيس كيتوبيا برورت أورجي كوين بالليدي وحلا لقى الغيل محوي هاي ورداده واحد وقعتان حاسس شيخ محمود حلا لقى الغيلين يا الدولة دي يونس صنبا بحيسة ما دام يونس صنبا بحيو حاسس هو لقى صحيح دولة معها
xafinik qolada xalla fadhida ka sareysa maadaama qoladaasi ka sareyso isla ugu sareysa wakiil baa wakiil gaar ma qashay wakiilka gaarka iyo intuu fadhiyo Soomaaliya ma qashay wakiilka gaarkii wuxuu gaar u yahay inuu dowlad dhiso ilaa uu dowladnimo dhameeyo dastuurka dhameystiran ma baxayo madaxweynaha Soomaaliya markii uu yimi in diintii laga cafiyo in ciidamadii loo dhiso heshiisyada uu galayo waxaas hawlaha ku talaabsada ma la oran karaa Somaliland intii iyadu isku mashquulsanayd gudaheeda isku mashquulsanayd ayuu jandii ku lumay iyadana guulaha Soomaaliya inay gaadhay warsaniga waa la oran karaa iyo Soomaaliya waxa loogu talagalay markii la ascaanood wax laga dhacay miitina badan oo ka qayb galnay waxaanu 100 jeer soo jeedin jirnay niyo yaalana mashquulin waxa la ascaanood ku socdo waa arrimo gudaha Soomaaliya waxa hadii doorashada waa arrimo gudaha waxaan dalka saarimo gudaha ka jira yalla inagu dawqin inaga madaxbanaanideen yalla marin habaabin walaa UN ba ku dhicin cid ku dhacdo ka madaxbanaanida maharayn ma jirto ee Soomaaliya waxay u marin habaabinaysay eeg 2010 markii dastuurka lidoo ku meel gaad qaybtii fulinta la madax banay oo am dawlad lagu sheego ku meel gaadnimadii ka baxday marka dib baa loo fadhiistay muddo 10 sano waxa la gelay tiraasiin shib labaad ay muddo 10 sano loo qabto waxa loo ka faraataka waa lagu dhameystiraa shuruucdii dalka oo koobkii dastuurka dalka dastuurkii waa ka guduu saaray yiri magacaas Soomaaliya dhexgeliyo waa tibaarnimo isku haysteen ilaa Puntland ma ka carootay dastuurkan wuxuu ku dhameystirmayay heshiis Soomaaliya wada galaan wax ilaahay ma hadiya maanta 2024 ka soo baxo Turkiga Soomaaliya heshiiyeen xashab wuxuu lahaa anaga heshiireyno heshiisi oran galnayo mid baa kugu daray halka arrin weyn baa ku jirta halka waxa maqashay 10 waxa dhacay dhowr shir baa dhaco Djibouti ugu dambeeyay marka soo xalon jiray arrintan madax laga hadlayo kala taga dib ha loo dhigo dheedka ay dilayaan waxay ogaayeen 10 sano ogaayeen 10 sano markuu dhaco inuu soo miska baxday isla haayeen wakiilka gaarka iska tago idinku u dawladeeya laakiin inuu Soomaaliya bixi mayso sida ay soo dastuur dhamaan maayo Soomaaliland kolbas u shaqeyso uunbay lagu guusha lagu helayaa maanta waxa Soomaaliya ka soo baxo in hor yaalo oo soo dhaweynaya qodobka ay cuskadeen oo yiraahdeen waxaan ilaalinaynaa jiritaanka iyo madax banaanida Soomaaliya jiritaanka waa ka waxa jiritaanka iyo madax banaanida Soomaaliya ilaalinaynaa taniyo jiritaanka madax banaanida Soomaaliya warqadda madax banaanida ku qaateen baa ka hadla warqadda wuxuu cuskaday markii madax banaanida siinay 114 buu cuskaday 1957 heshiiskaas wuxuu ka hadlay maalinta madax banaanida siinayo heshiiskaas wuxuu tixraacaya waqtiga transitionship la geeyay dawladda oo soo dhis waqtiga dawladda waa qantoki waa 12 December 1950 xad bay Soomaaliland wadaagaan Soomaaliland shaqo kuma lahayn dhulka lagu transitionship la geliyay ee lagu yiri soo dhis dawlad qantoki tiraga loo dhiibay Soomaaliland xad buu leeyahay kaas waxa mar 1959 labiyad bishii 1959 wan aad forbaada heshiiska hadana waxa miyood mar labaad yood ku tiri kowda July madax banaanisi warqadii lagu siiyeen waka wuxuu cadeynaya dhuliga dad buu cadeynaya heshiiskaasi marka dawladda Soomaaliland waxaan mar walba ku celcelinaya Yunus Soom xasan wuxuu ogyahay in heshiiska ka baxayo laakiin maanta khilaafka dad buu ku sii qarxiyay ma baxayso dastuur dhamaan maayo waxa la kolba Soomaaliland soo shaqeyso Itoobiya maanta dhex marno Itoobiya markay dacweyso Itoobiya hal qoraalka ay soo dhigto maanta hadii tiraahdo qoraalka qura soo dhigto oo taanu madax banaanida Soomaaliya ma haysto hadii tiraahdo boqolkiiba Itoobiya ku leesanaysa dacwadeeda Soomaaliland guul bay ka sii qaadaysaa inta la dacweeyo waxba inta kale laba Soomaaliya saysta dadku isma haystaan laba dawlad baa saysta ma bixin karto iyo waan bixin kara oo ah ana ku matalaaduna dhuliga dadkiisa intuu sharcigu siiyay Xasan Sheekh Maxamuud uu garanaya warqadaas siisay oo magaca Soomaaliya